بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdiraxmaan Buurdhaab. waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan gobolka Togdheer, magaalada Burco. halkan maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo. waxaan arkayay warbaahinta isagoo ka hadlaya nin la dhaho Maxamed Jabuutaawi oo ahaa ganacsade ku nool gobolka Sool, magaalada Laascaanood, sheegayna inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha maamulka Khaatumo waan karta oo uu la tartamayo firdhiye. anigu shaqsi ahaantayda haddii ay firdhiye iyo Maxamed Jabuutaawi ku tartamaan madaxweynenimada maamulka Khaatumo, waxaan taageersanahay, waan support karaysanahay, waan jeclahay inuu ku guuleysto Maxamed Jabuutaawi. Maxamed Jabuutaawi waa nin haddadan oo Khaatumo jirto reer Somaliland la shaqeeya, reer Somaliland u jooga meesha. haddii Maxamed Jabuutaawi jagada ku guuleystana khilaafkii Somaliland iyo maamulka Khaatumo ka dhex jiray uu soo gabagaboobaya. maaha Maxamed Jabuutaawi nin diidan Somaliland tarnimada. marka Maxamed guul baan u rajaynayaa, guuleysta baan leeyahay. Maxamed firdhiyana waxaan leeyahay bulshada ay reer Laascaanood iyo reer Khaatumoba war firdhiye wadi maran habaabinaya ninka kursiga saara. Maxamed Jabuutaawi waa reer Somaliland, waa nin haddadan laftigeeda u shaqeeya Somaliland oo halkaa u jooga. marka guuleysta baan leeyahay, hambalyo. bulshadana waxaa leeyahay ninkaa taageera haddaa wax qabad rabtaan iyo horumar. Assalaamu calaykum.